mashruucan oo ay ku kacayso lacag ka badan 10 milyan oo dollar ayaa ka mid ah dhismayaasha beddelaya muuqaalka caasimadda. guryahan ayaa la filayaa in ay deegaan u noqdaan qurba joogta soo guryo noqonaya iyo sidoo kale dadka gudaha. waxaan ku doortay xaafadan waa xaafad cusub, sidoo kale waxaan ku doortay guryo cusub, design cusub, quality guryaha aan arkay iyo area aan aad uga helaa. kaabayaasha looga baahan yahay qalabka dhismaha oo aan Soomaaliya laga helaynin xilligan ayaa dheeraynaya waqtiga iyo sidoo kale kharashka galaya. waxa ka soo bilaada processku sidiisa marka hore qabtayna haysatid dhulkii, waxa ku soo xigay inaad design samaysid, design-kaagaas inay shacabka ama dadka customer-kaaga ay ku qanci karaan. waa nidaam cusub oo ku soo biiraya nolosha Muqdisho iyo sida ay magaaladu u fidayso, balse qiimaha guryahan lagu iibinayo waa mid aad u sareeya marka loo eego dakhliga qofka Soomaaliga ah. sidaa darteed dadku waxa ay ciirsadaan habab kale oo u sahlaya in ay guryahan iibsadaan. bangiyada ayaa dowr muhiim ah ka ciyaaraya mashruucan, macaamiishana u fududeynaya iibsiga guryahan. runtii way kordhisay, yani dadka markii oo qofkii maaragtay uu ogaado oo kale in gurigii bangiga u maalgelinayo oo qayb kamid ah oo reedkii oo maaragtay reedku uu yar yahay, dadku way bateen, nambarka maaragtay guryaha gadanaya waa soo kordheen. muddada lagu bixinayo deynta ayaa loo arkaa in ay tahay caqabad ku horgudban in ay macaamiil badan iibsadaan guryahan. waxaan naqina kow nidaamyo oo maaragtay mortgage system ama financing oo bangiyada aan la macaamilno meelahaas markaan joogno. kuwaas marka waxayna siiyaan deyn muddadiisu ay ugu yar tahay 5 sano amaba ilaa 30 sano ayaa lagu siinaa waqti oo xilli aad lacagtaas aad ku bixiso adigoo aan dareemin. laakiin inta markii aan nimid ma aanan ka helin taas, maxaa yeelay bangiyadii aan rabnay inaan la macaamilno waxay noo sheegeen waxay dhaheen 2 sano ka bixinaysiin. horumarka caynkan oo kale ah oo ku soo badanaya Soomaaliya ayaa ah calaamad muujinaysa in uu dalku ka soo kabanayo dhowr iyo 20 sano oo burbur ah. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho.